yaal soo dhawaada kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa waxay ka soo badisay kooxda West Ham hal gool oo u dhaliyay laacibka heer Senegal. Mane ayaa ugu filaa inay guul ka gaadhaan 3 dhibcood oo kaliyana u soo jirsadaan kooxda hoggaanka hayse ee Man City. sidoo kale kooxda Roma ayaa iyaduna 1-0 ku badisay. ninkii Obrana ayaa la qaban laayay hadaba ninkii Chelsea intuu ku fashilmay iska tegay. ninkastoo Chelsea ka tagaan wuxuu noqdaa labaxniyood laacib dhalaya marka goolkiisi 20aad ayuu u dhaliyay iyo 4 caawin buu leeyahay ninkaas. hadda ciyaartoyda Chelsea intaasoo dhan ma wada lahaa isagana warbixin baa idinka haynaa. hadaba kooxda Liverpool ayaa maxaa la dhahaa waxay guul ay ka soo gaadhay kooxda West Ham oo ay marti ugu ahaayeen garoonkooda. waxayna soo yareeyeen farqiga u dhaxeeya iyaga iyo Manchester City kaasoo hoggaanka haysa. waxayna ku soo koobeen 3 dhibcood oo kaliya. hadaba goolka oo kaliya uu dhaliyay Mane ayaana ugu filaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool inay hesho guushan muhiimka ahayd iyo 3 dhibcood oo muhiimka ahaa maadaama ay maxaa la dhahaa wax weyn u taraso una soo dhawaatay hoggaanka Premier League maxaa la dhahaa kooxda Man City ayaa biri waxay la ciyaari doontaa kooxda Manchester United waana game adag gamekaas oo hilfaha la isu qaadi doono. ay ciyaartan ay noqon doonto ciyaar adag maadaama labada kooxoodba ay ka wada tirsan yihiin magaalada Manchester. marka gameka derbiga biri waxaa la isku jabi doonaa kooxda Man United oo ciyaartii ugu dambeysay ay ku soo ciyaaraan Al-Ittihad Stadium ku soo badiyay. hadaba talo ma ku badin doonaan biri bay iyadana eegi doonaa kooxda Manchester United oo maxaa la dhahaa u dagaalami doonta kaalinta afraad iyo kooxda Man City oo iyaduna ku dagaalami doonta horyaalka Premier League iyo inay sii haysato horyaalka. wana xaggaas ciyaartii Liverpool iyo kooxda West Ham. kooxda kubadda cagta ee West Ham ayaa waxay soo bandhigtay kubad aad u heer sareysa markii hore kaasoo ay fursado ay heleen xataa mar ay dhaafiyeen goalkeeperka Alisson kubad ay dhaafiyeen waxaa ka soo daafacay daafacan heer England Arnold caadi maaha goolkiis Mane isaga ayaa caawiyay ninkaas xilli ciyaareedkan ilaa xilli ciyaareedkii 2021 ilaa 2022 16 gool buu caawiyay ninkaas waxba laga qaban karo daafacaas waa caawiye midhan caawina goolka isaga ayaa soo daafacay halka iyo Keita ayaguna ay fursada ka soo daafaceen kooxda West Ham oo ay iska soo daafaceen. sidoo kale xidiga heer Marsal Mohamed Salah ayaa isaguna fursad loo fishay gool inuu ay tahay uu ka khasaariyay kooxdiisa Liverpool. marka ninkaasna wuxuu helay fursad aad u dahabiya wuuna iska khasaariyay. marka kooxda Liverpool sanadka maanta iyada laftigeedu waxay ku tartamaysaa horyaalka Premier League waxayna leeyihiin waanu ku dagaalamanaa ilaa iyo marka ugu dambayso oo Man City waanu ka qaadi karnaa. marka kooxda Liverpool cadhidhi ku tahay oo kooxdan Carabta ah cagta u saareen nimankaas. nimanka Liverpool sanadka waa maharayaal niman haraya maaha nimanku. marka kooxdii Man City waa yaaban tahay war cuqubadan baasina daba taagan aan harayna habeen quri aan laga badinay maxay ahaayeen. marka kooxdan Liverpool waa koox isku dheeli tiran oo isfahansan oo ciyaartoydoodu iyo maxaa la dhahaa aad isku fahansan oo marka habeenkii Salah uu ka gafo goolka oo la waayo inuuna gool dhalinayn Mane ayaa dhalinaya. Mane hadii laga waayo waa Firmino iyo Diaz iyo ninka la dhaho raggaas ku tuuranaya. marka kooxdan Liverpool waa koox shaqo sanadkan diyaar bay u yihiin. hadaba daqiiqadii 27aad ayay kubad uu qaatay oo u soo dhigay Arnold kaasoo caawiye oo ninkaas waa caawiye weyn sida aan idin sheegayba. Mane ayaa goolka ku hubsaday kooxda West Hamna kaga naxsaday. goolkaas waxaa laga hubiyay faarta laakiin waxaa la xaqiijiyay inuu goolkaas ahaa gool sax ah oo Mane uuna ku jirin wax offside. hadaba ninkaas warninka Mane caadi ma aha sidoo koobkii Afrika u soo qaaday oo iska faraxsan yahay oo waa qaadaya. marka sanadka maanta goolkana isaga u dhaliyay kubaduna ciyaarta labada kooxoodba waa aad bay u fiicnaayeen. marka kastoo kooxda West Ham ay fursado badan iska khasaareysay oo maxaa la dhahay oo ay sidaan horey bay idinku sheegay ay goolal ka badbaadiyeen Keita iyo Emerson iyo maxaa la dhahay marka nimanku caawa Liverpool waa isaga nasiib bay u lahaayeen inay nimankaas ay soo daafacaan. marka raga
nimanka Liverpool waa dagaalamayaan koobkoodana waxay kula dagaalami doonaan kooxda Man City marka labada kooxoodba kubaddooda waa ficnaayeen inkastoo aan goolalka la iska dhalin halka gool ay ku soo kala baxeen kooxda Liverpool iyo kooxda West Ham dhanka kale kooxda kubadda cagta Roma ayaa maxaa la dhahay iyaduna guul soo gaadhay 1-0 ku soo badisay Mourinho iyo kooxdiisa ninkii Abrana ayaa shabaqa laga celcelin karay la yahay waana goolkiisi maxaa la dhahaa 20aad uu u dhaliyay intuu Roma ku soo biiray maxaa sidoo kale waana 4 caawinna waa leeyahay soo Chelsea ku fashilma hadhow wuxuu ku noqdaa markuu ka tago dab noqda Chelsea ragga maxaa see u gashaan ragga heer Chelsea bal nooga jawaab su'aashaas waxaana ahayd ciyaar 2 red card la qaatay labada kooxoodba mid red card bay qaateen marka ciyaar aad u kulul bay ahayd ciyaartaasi waxayna ku soo dhamaatay 1-0 oo Roma ku badisay marka ciyaartaasna sidaas ayay Roma guush ugu raacday kale waxa record xidhay Van Dijk ninkan caadi maaha 60 ciyaarood oo guriga Liverpool lagu ciyaaray Anfield wax gool daraa lama kulmin 52 ciyaarood wuxuu ku dhamaystay guul 8 ciyaaroodna waxay ku dhamaatay 0 wax gool daraana lama kulmin ilaa iyo hadda ninkaas caadi maaha markuu joogo Anfield ninkaas caadi maaha waa daafac la isku hubo marka ilaa iyo hadda wax gool daraa kulamo kulmin gurigan uu ku ciyaarayo dhigay recordkaas ninkaas record buu xidhay caawa marka recordkaas u yaala ilaa iyo hadda wax gool daraa lama kulmin isagoo taageerayaasha hor joogo guriga Anfield la jooga wax gool daraa lama Van Dijk ninka Hollandeeska caadi maaha marka cimaamada igu tuura saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan waxay leeyahay haydin wacnaado jawiga haydin wanaagsanaado farxad iyo bashbash iyo barwaaqo ku sugnaada heer Liverpoolna waxaan leeyahay hambalyo bay leeyahay saaxiibayaal